markana Soomaaliya inkastoo gobolada qaar ay ka bilowdeen roobabka guga haddana waxaa jirta saameynta ay abaarta keentay maadaama dhowr xilli roobaad uusan si wanaagsan roobka u diin biyo la'aanta waa midda ugu daran ee haysata dadka ay abaartu saameysay wariyaha BBC-da Maxamuud Cabdisamad oo dabayaaqadii bishii hore tagay Gaalkacyo ayaa warbixintan inoo soo diray waxay hoos fadhiyaan harka geedka oo qorraxda ay uga gabanayaan caanood waxay halkan ku haysaa caruurta gabadheeda oo baad iyo biyo u raadisay mana oga inay soo heli doonto in kale waxaa saameysay abaartii ku dhufatay deegaanka Qoorasayn ee koonfurta Gaalkacyo dunyadoodina waxba kama harin bilaa badan intay abaartu socotay lagama sheekay kale bilahana ma tiri karo culayska hadda idinkugu weyn waa biyaha miya biyo iyo baadba la cuno biyo iyo cunanku way iswadaan dadka deegaanadan ayaa caanood la qaba saameynta abaarta waxaa ka mid ah Xaawi Cigaal oo gurigeeda ka soo lugaysay 2 saacadood oo socda kadib waxa ay la kulantay booyadan biyaha oo mararka qaar biyo dhaamin u samaysa tuulooyinkan balse kuma filna hal booyad ma ku filna baraaga buuxa oo ilaahay xareedda ilaahay u buuxiyay ay culin waaya dadkan soo daayeen booyad marka kaliya la soo dhaamiyay oo konta fuusta qaada ma ku filna ilaahay wax ku filan ka rajeynayna dhibaato nuugu weyn oo nuugu daran waxa waay ceel la'aan matoor la'aan lacala haddii meeshaan matoor ka midnaan lahaa la qoorsan jeexo aagaas waxaas leeyahay xoolaha sida geela ariga wax kala soo cali waa ku soo aroori lahaayeen waxa kalena booyadii loo shubaa waa deeqi lahayd isleeyahay biyo la'aanta waa saameynta ugu weyn ee ka dhalatay abaarta hadda taagan haraadka waa xaaladda ugu ba'an ee la soo warinayo muxuu maamulka deegaanka ka qabtay runtii dadaalo badan baa sameynay oo isku jira qayladhaanta humanitarianka u dirnay contribution aska maamulaan hoggaan aan ka ahayn oo aan ugu talagalnay ceelal in lagu qodo sababtoo meelaha qaar booyaddu waxay gaartay konton qaadahay $700 $800 suurtagal ma xataa hay'adaha humanitarian ay geyso marka waxaa jiray contribution aan bulshada u dhaxgalnay oo ilaa 3 barood ah 3 ceel hadda ugu soo diyaarinay oo midkii koobaad oo qodaalkiisa socdo 2 kalena la sugayo insha Allah inay dhawaan bilowdaan duleedka magaalada Gaalkacyo dadkii abaarta xoolahooda ka soo dhameysay ayaa halkan ka samaysanaya xirooyin cusub si ay uga helaan baad iyo biyo magaalada Gaalkacyo halka kuwa kalentana ay dulsaar ku noqdeen dad hore u soo barakacay Salaade iyo caruurteedu waxa ay ka mid yihiin dadka ay dantu ka soo kaxaysay deegaankii ay ku dhaqnaayeen intii dunyo u harsanaydna cidla ay kaga yimaadeen abaar baa meeshaana keentay meel dohyar la yiraahdo waxaan haysanay uga soo kacnay abaar baa marka wax yar baa ka haray wixii yar ka ahaana ayagoo guriga hortiisa taagtaagan baa noogu dambeysay qoysaska waxa ay ku nool yihiin duruuf aad u adag xilligan bisha Ramadaanna waxay aad ugu sii baahan yihiin gargaar degdeg ah Maxamuud Cabdicasiis BBC Muqdisho